deegaanka cusub ee geed oo bokor oo lagu soo afjaray khilaafkii noo dhaxeeyay anaga iyo kaamkii Sheekh Cusmaan Nuur Xaliimka u dhaxeeyay run ahaantii go'aanka markuu soo baxay waanu qaadanay waana fulinayna anagu warkiin inuu nagu yara adkaa oo nagu cusay inaan ka guurno deegaankii aan boqolaal ka sano lahayn haddana waxa uu qaadanay anagu maanta duruufta dalka ka jirta eegina walaalnimada naga dhaxeeysa ee guunka anaga Maxamed Ciise naga dhaxeeysa anagu eegina anagoo wada jirka bulshada eegina go'aankaas horta waanu qaadanay waana fulin doona insha Allah ta'ala guushaana horta waxa ku suntan oo leh guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer gaar ahaan barasaabkeenu hogaaminay barasaab nafaqo waxa kale oo ku suntan barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aad Xaaji Diriye iyo wasiirkeena wasaaradda xanaanada xoolaha Siciid Surub oo runtii intaaba taalada iyo wanaaga iyo sharafta intaaba labada dhinac la soo hadlayay intuba waa ku mahadsan yihiin go'aankana sidaas oo qaadan xaggan wax kale ka soo noqon maayaan wixii miidiya galay dhinaceena ahaa ee afxumada ahaa ee ka soo baxay qaar dagaal ku baaqay qaar kale waan arkaynaa waxaana dawladdu iyada ku shaqalayna amniga sunto tallaabo ka qaado nama matalaan noomana hadlaan go'aankaas anaga qaadano anaga cuqaashi warqada ku suntana aad iyo aad baan